بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalaha qaaliga inagu xiran iyo walaalaha cusub ee gadaal nooga soo biiri doono. Waxaan rajeynaynaa dhamaantiin wacantiin alxamdulillaah ani waan idin caafimaad qaba adinkan waxaan idin rajeynayaa bashbash caafimaad barwaaqo nimco adduunyo aakhiraba biidni raxmaan dhamaanteen ilaahay waxaan weydiisanaynaa dunuubteena inuu noo dhaafo dambigeena kii hore iyo kii dambe mid yar iyo mid weyn mida ognahay mida ogeyn ilaahay noo dambi dhaafo waalidiinteena ilaahay u naxariisto oo ha dambi dhaafo siday noo barbaariyeen oo noo jeclaayeen anagoo yaryar oon awood lahayn ilaahay u naxariisto maalintay taageer yihiin adduun iyo aakhiraba biidni raxmaan soo dhawaada walaalaha qaaliga jannatul firdaws ilaa ugu kulmiyo biidni raxmaan rasuulka maciisana allaha naga dhigo aan isxasuusina salligeena nabiga sallallahu alayhi wasallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما soo dhawaad walaalaha qaaliga sidaad nooga barateen waa qisaskeenii laga arkay xuska ilaahay iyo dikriga ilaahay noocyadiisa kala duwan hadii ahaan lahayd quraan akhrinta hadii ahaan lahayd xuska ilaahay iyo dikriyada noocyadooda kala duwan istighfaarta xoqolada salliga nabiga taaju dikriga iyo dhammaan xuska ilaahay aan soo koobi karin biidni raxmaan waxaan isku boorinaynaa oo mar walba idinla sheergareyn doonaa qisaska iyo faa'iidooyinka laga dhaxlay biidni raxmaan haddaba aan gudagalna qisadeena koowaad iyo waxa ay leedahay qisada ugu horeysa waxaa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay waxaan isdaaweynayay muddo liiqabay oo aanan wax oolaada dhalin waana ku daalay dhakhaatiirta iyo daawooyinka noocyadooda kala duwan waxay tiri alxamdulilah markii dambeenta ilaahay waxa uu igu dugay oo carabkayga uu u fududeeyay inaan istighfaarka aad iyo aad u badiyo iyo inaan akhriyo suuratul baqara iyadoo dhammaystiran maalin walbeento alxamdulilah waxay dhahday aakhiru leylka habeenkii intiisa dambeentani waxaan sameyn jiray alla bari iyo duco iyo salaad ayaan isku dari jiray ayay dhahday marka intaas 2 bilood aan waday ayay dhahday alxamdulilah ilaahay wuxuu igu arsaaqay ubad alxamdulilah subxaana razaaq ilaahay razaaq oo xumaan oo dhan ka nazahan waxay leedahay ilaahay nimcooyinka iyo khayrka ha noo taam yeelo aamiin allahumma aamiin qisadeena xigtana waxaa ka sheekeynayso gabar waxay dhahday waxaan bilaabay istighfaar qiyaamul leyl iyo alla bari inaan bilaabo waxay dhahday waxa yacni aad iyo aad ii hayay xaqdi iyo xasad marka waxay dhahday sidaas la ajligeeda guurkii ayaa iiga soo daahay oo yacni waxaan noqday gabar weynaatay oo aan wali guursanin waxaan bilaabay ayay dhahday istighfaar watire in ilaahay daniga iyo malaha aan ka malaysanayo aan wanaajisto qiyaamul leyl aadna waxaan u badinayay dhahday istighfaarta inaan ilaahay baryo ayaan waday ay dhahday markaan qiyaamul leyl ku istaago alla barna waan ku daraayay ilaahayna waxaan ka baryay subxaanahu wa tacaala inuu ii siiyo zawj saalix ah oo guur khayr qabana uu ii siiyo alxamdulilah ilaahay wuxuu igu arsaaqay zawj saalix ah qani ah oo hanti haysto ilaahay ka cabsanayo ilaahay ayaa mahad iska leh alxamdulilah ninkii waan isguursanay waxa uu yahay ay dhahday ninkaas ilaahay igu hibeeyay oo isiiyay nin salaadiisa xifdinayo aad iyo salaad ugu yacni aad iyo salaad ugu dadaala ayay dhahday marka waxay leedahay istighfaarta ayaan ku helay faa'iidadaas alxamdulilah inkastoo ahaa gabar guurka ka daaday balse markii aan bilaabay xuska ilaahay yaa la ka cabsigay aan aad iyo aad u xoojiyay waxay tiri waxaan ku helay istighfaartii iyo ducadii iyo witir iyo quraan akhris badan qiyaamul leyl badan kadib waxaan helay dhahday zawj wanaagsan ana daryeelo aan naxariisto ilaahigiisana ka cabsanayo adduunyadiisa iyo aakhiradiisana u dadaalaya ayay dhahday alxamdulilah qisadeena kalena waxaa ka sheekeynayso gabar waxay leedahay ayadana waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah guurka ka daahday shaqo la-aan oo mar hore wax intay baratay haddana aan shaqo iyo guur midna helin ayay dhahday waxaan bilaabay akhrinta suuratul baqara iyo istighfaarta marka aan joogteeyay muddo 3 bilood alxamdulilah waxay dhahday waxaan helay shaqo waxa kaloo ilaahay ugu arsaaqay ay dhahday nin aad iyo aad sifooyinkiisa ninnimo aan aad uga helay ayuu ilaahay ugu arsaaqay ay dhahday oo isguursanay alxamdulilah istighfaarta iyo suuratul baqara ayaan ku helay ay dhahday nimcadaas gabadhan kalena waxay leedahay istighfaarta waa cajiib wax mustaxiil oo suurtagal ahayn ayay ka dhigtaa ay dhahday suurtagal oo in xaqiijisaa waxay dhahday aniga ahaanteyda waxa ay haysatay arin ila ahayd yacni inay suurtagal ahayn inay xalismato balse marka aan bilaabay istighfaarta waan aad u celceliyay aniga oo yaqiinsan waliba ayaa alxamdulilah arinteydii way ii xalismatay ayay dhahday kalena waxaa ka sheekeynayo wiil waxa uu leeyahay 3 maalin ka hor waxaan ahaa mid aad iyo aad ugu baahan lacag
saas ay tahayna ma aanan haysanin ayuu dhahay wax lacag ah mana aqoonin ayuu dhahay meel aan wajiga aadiyo aan ka doonto. waxaan bilaabay ayuu dhahay inaan aad u istighfaarsado heer xilliga indhaha aan isku sii qabanaya anoo istighfaarsada indhaha sasta u kala furan hore ayaan ka istighfaarsanayay ayuu dhahay. waxa uu yiri marka aan seexday subaxdii aan soo kacay waxaan arkay oo dhahay mobilkii oo ku jirto lacag oo dhan يعني كل ريال وحاو dhahay waan fiiriyay waxaan arkay oo dhahay lacagtan qofka soo diray inuu tahay qof 4 bilood ka hor deyntas aan ku lahay oo يعني saa u lahay si deynteeda aan isaga qoso isaga aamus ayaaba lacagtayda Ilaahay iga soo qaaday alxamdulillah. kalena waxa ka sheekeynaya wiilkan asaga oo ka hadlaya fadliga istighfaarta iyo faa'iidada oo ka helay. waxa uu leeyahay Ilaahay baan ku dhaartay ilaahaas baneeyay in lagu dhaarto. waxa uu dhahay waxaan marayay xaalad aad iyo aad u adag oo maaliyadeed oo lacag la'aan ayaa haysay lacag la'aan iyo duruuf aad u adag ayaa haysay. waxa islaha ayuu yiri ma ka bixi kartid mana xasuusanin ayuu yiri qaab aan uga bixi karo lacag la'aantan balse Ilaahay wuxuu qalbadeyda ku soo riday ayuu dhahay inaan bilaabo istighfaarta. waan fadhiistay ayuu dhahay istighfaar fara badan ayaan la imaaday. waxa uu dhahay waxaan aad u istighfaarsanayay xilliga habeenka xilligiisa dambeento ilaa aadaanka fajarka laga gaaro. waxa uu dhahay waxaan istighfaarsanayay heer carabkayga candhuufta ee ka qalashay ee uu dhahay heer sida yacni istighfaarteedu ay u badneed kaliya. uu dhahay istighfaarta markaan sidaas u waday 48 saacadood markii ay ka soo wareegatay ayuu dhahay markaan istighfaarta bilaabay alxamdulillah. waxa uu dhahay qaab aan filaynin ayay igu soo gashay ayuu dhahay lacagtii anigoo qof bini aadan aan weydiisanin ayuu dhahay istighfaarta aan la imaaday kaliya. Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa igu soo adeejiyay. إلهي سبحانه وتعالى بلنقات كي سماه مد بين أمرك ونليها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إلهي سبحانه وتعالى بلنقاد آدي وين أيو بلنقادي أهل المستغفرين. حكت waxa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay qisadeeda waxay ku saabsan tahay istighfaarta. aniga ninkeyga waxaana dhaxmaray ee dhahday mashaakil aad u weyn waliba nafsadeyda aad u bedelay ee dhahday ninkeyga aad ayuu u kacsanaay mar walba imtixaanaaq yani wax aan ku heshiinayna ma jirin aniga asiga ay dhahday heer aan ku fikiray dhahday in ama kala tagtiin ninkan sidaan iyo sidaan ku dhibay ayaan sariir dhahday. markii dambe waan fadhiistay oo waxaan bilaabay istighfaarta. Ilaahay waxaan weydiistay haduu wada joogeenan khayr yahay in Ilaahay Rabbiga Raxmaanka reerkeena noo xasiliyo hadaanan calaf isku lahayn si fudud anagoo isku xumaanay aniga wiilkan aan kala tagna ayaan Ilaahay ka baryay dhahday. maalintii waxaan akhrin jiray ugu yaraan ilaa 3000 intii aan awoodan waan gaarsiin jiray ee dhahday. alxamdulillah Ilaahay mahaddan u sugnaatay waxay dhahday wuxuu ku soo noqday ninkii sidii hore iyo si ka wanaagsan aad u degan ayuu noqday. يعني anigii wuxuu يعني ugu noqday ee dhahday qof hadda isbarteen oo kale adabta ay ugu noqday ee dhahday oo maxaa rabtaa maxaa ku waaba anigii waaba sidii dad isku cusub oo kale ayuu u dhaqmayaa dhahday sidii inay wax dhaxmarin oo kale subxaanallah aad ayaan cajabay ee dhahday. Ilaahay iyo xamdi iyo minno iyo galad oo dhan u sugnaatay alxamdulillah. reerkeena wanaagiisa iyo farxadiisa u soo celiyay reereyntiisa ay leedahay. qisadan waxa ka sheekeynaysa maamadan waxa ay leedahay gabadheeda waxa ay lahayd qalliin ayay dhahday oo gali rabto anigana aad ayaan u walwalay hooyo ayaan ahay ilin ayaan leeyahay ka da'aysa ay dhahday habeen iyo maalinbo. laakiin waxay dhahday waxaan u noqday Ilaahay xaqiisa oo waxaan bilaabay ay dhahday duco iyo istighfaar iyo quraan akhris fara badan ayaan bilaabay ay dhahday. alxamdulillah markii aan muddo yar waday waxay dhaqaatiirtii ii sheegeen ay dhahday in gabadheedii hadda aysan u baahneen wax qalliin ah ay siinayaan daawooyin oo laga maarmi karo qalliinkii. subxaanallah aad ayaan oo la fajacay dhahday. waxaan idinku nasteexeynaa naftiina iyo naftiidaba dikriga Ilaahay inaan badisaan istighfaarta iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. alaha qaaliga qiimaha iyo sharafta naga mudan insha Allah qisaskay maanta aan ugu talagalay intaas ayaan ku soo koobayaa بإذن الرحمن قفكي قصهايو قربت كومنتيغا ونوغو سو قوري كرا si walaalaha qaaliga oo u dheergeliyo dikriga Ilaahay. waxaan idin leeyahay waqtigiina aadna geliseen Ilaahay idinka ajar iyo jaza siiyo biidni Raxmaan. Ilaahay yaa mahad iskala fursad noo siiyay maalin kaleeto inaan u cibaadeysano isugu imaano inaan isxasuusino dikriga Ilaahay inaan isku dhiirigelino dikriga Ilaahay. Ilaahay yaa mahad iska leh alxamdulillah. waqtigeena hadaan dhanka wanaaga u isticmaalayno
waxaa jira dad xumaanta dhankeeda u isticmaalaya marka waa inaad mar walba intay tiraahdaa alxamdulilah iimaankeena ha noo quweeyo inta xumaanta ku dhex jirtana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu soo hanuuniyo oo khayrka ilaahay la doono biidni raxmaan man yurid illaahu khayran yufaqihu fi diin qofku ilaahay khayr la doonana diinta ayuu fahansiiyaa ilaahay fahanka diinta iyo macaanideeda iyo ku dhaqankeedaba ilaahay hanoo sahla biidni raxmaan walaalaha qaaliga ilaahay gafkeena iyo geerideena ma kulmiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa toobatan nasuuxatan qabla almowt dunuubteena mida yar iyo mid weyn mid yar iyo mid weyn mid hore iyo mid dambo midaan ognahay iyo midaan ogeynba ilaahay hanoo dambi dhaafo waalidiinteena ilaahay u naxariisto sidaan oo yaryar noogu naxariisteen oo kaleento ilaahay waxaan weydiisanaynaa rasuulka maciise inuu naga dhigo in jannaatulfirdows laclaa ilaahay noogu bishaareeya biidni raxmaan annaga iyo waalidkeen iyo walaalaheena iyo ehelkeen iyo owlaadeena iyo aswaajteenaba iyo dhammaan ummadda muslimka meel kastoo ay joogtaba waxaan weydiisanaynaa in iimaankeena noo xoojiyo allaahuma yaa muqalliba alquluub thabbit quluubanaa calaa diinik ilaahayow diinta nagu sug allaahuma yaa muqalliba alquluub thabbit quluubanaa calaa daacatik ilaahu daacadaada iyo wanaagaaga iyo kheyrkaaga nagu sug yaa rabbi yaa raxmaan allaahuma arina alxaqa xaqan warzuqna alitibaaca allaahuma arina albaadila baadilan warzuqna alitinaaba rabbana aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar walaalaha qaaliga qof walba inta meesha uu ka kurbaysan yahay ilaahay ka fiido kurbada farxad allah ugu bedelo culayska fudeed allah noogu bedelo faraj khayr qaba allahna sii irsaaqad barakeysa allahna sii caafimaad taam allahna sii owlaad baari allahna sii owlaad saalixiin allah nooga dhigo khayrkii wanaag allah noogu hanuuniyo inta owlaad haysanin owlaad baariin oo saalixiin jirkooda allah uga soo gooyo inta guur la-aan guur xalaal allah sii inta xabsiyada ku jirta allah ka soo deeyay inta deemaysan allah ka gudo inta shaqo la-aan shaqo khayr qabto oo wanaagsan allah sii irsaaqad barakeysan بإذن الرحمن مرادكين مرادك المسلمين الله سهلو كعنتين تي سريس الله كيال آمين تيني آمين ملائكة الله كل مية بريدين يبكتدين بن آدم إلهي متسيء اللهم آمين أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائع ولا لها قال يا وحرجيني إن أسيشي القريسين أنت أودين إن شاء الله وخير كالجعشين فيديو لايك سار سمير في عنو وروح بدن ونوغارو جنرال كان سبسكرايب نولها بإذن الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله